Mengistu Haile Mariam waxa uu sanadkii 1937 uu ku dhashay gobolka Kefa waxana uu ka soo jeedaa qoomiyadda tirada yar ee Konso. Aabihii waxa uu ahaa askari halka hooyadiina ay ka ahayd shaqaale. Markii daadiisu ay ahayd 8 jir ayaa hooyadii ay dhimatay. isaga iyo laba caruur ay walaalahaayeen waxa korisay ayeedood hooyo laakiin Mengistu waxa uu tagay aabihii isagoo daadiisu ay yar tahayna waxa uu ku biiray ciidamada militariga ee Itoobiya. Aabihina waxa uu qushuucay guulaha wiilkiisu uu ka gaadhayay ciidamada. Mengistu waxa lagu tababaray xerada Holleta iyo dalka Mareykanka. wiilkana waxa uu raacay raadkii aabihii ee askarinimada ahaa. dadaalkiisa ayaa soo jiitay generaal dhalashahan ka soo jeeday dalka Eritrea oo loo odhan jiray Amaan Andom, ninkaasoo soo gacan qabtay kana dhigay saajin ka howlgali jiray xafiiskiisa. Mengistu markii uu ka qalin jabiyay kuuliyadda Holleta oo ah mid ka mid ah labada kuuliyadood ee ugu wanaagsan ee lagu tababaro ciidamada dalka Itoobiya ayaa waxa loo diray taliskii saddexaad ee ciidamada Itoobiya ee fadhigoodu ahaa magaalada Harar. isagoo ku sugan magaaladaasi ayaa waxa tababar military loogu diray kuuliyadda tababarka ciidamada ee Safaan ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka. sanadku markuu ahaa 1964 markii Mareykanka uu ka soo laabtay ayaa isagoo isu diyaarinaya inuu ku noqdo Mareykanka waxa uu khilaaf dhex galay taliyihii hogaaminayay ciidamada fadhigoodu ahaa magaalada Harar oo loo odhan jiray General Haile Bekadan oo ku eedeeyay anshax xumo iyo ixtiraam laan waxaana lagu xayiray xerada. hase ahaatee mar dambe ayaa loo ogolaaday inuu u dhoofo Mareykanka waxaana uu bilaabmay tababar qaadanayay 18 bilood oo uga socday kuuliyadda Aberdeen Proving Ground oo ku taala gobolka Maryland ee dalka Mareykanka. kuma ekaanu tababarka ciidamada ee waxa uu isqoray fasal habeenkii laga dhigan jiray jaamacadda University of Maryland waana halka uu suurtagelisay inuu qumaati ugu hadlo af Ingiriisiga. intii Mareykanka uu ku sugnaa hase ahaatee waxa uu la kulmay cunsuriyad waxaana Mareykanka uu ka soo laabtay isagoo nacay badan u qaba waana sababta markii dambe uu la heshiiyay midowgii Sofiyeeti. sanadkii 1974 Itoobiya waxa ka bilaabmay kacdoon dadweyne oo ka dhan ahaa dawladdii uu hogaaminayay boqor Haile Selassie oo weyday kalsoonidii shacabka kadib markii dalkaasi ay ku dhufatay abaar baaxad lahayd oo inteeda badan ku absatay gobolka Wollo. militariga ayaa ka faa'iideystay xaaladda waxaana la inqilaabay dawladdii boqorka. saraakiishii ciidamada ee daada yareed ee qabsaday talada Itoobiya ayaa meel mariyay nidaam shuuci ahaa oo ay aaminsanaayeen in lagaga gudbi karayay xaaladda adag ee Itoobiya ay ku sugnayd waxaana ay la wareegeen oo ay qarameeyeen beerihii gaarka loo lahaa. saraakiisha darajadoodu ay hooseysay oo uu hogaaminayay Afnato Abate ayaa xilka la wareegay. Mengistu oo ahaa nin karti badan ayaa la saaxiibay Abate waxaana ay isu noqdeen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulkii dargiga 1975 ilaa 1977 koorintii Mengistu Haile Mariam aanu si rasmi ah ula wareegin talada Itoobiya. Mengistu waxa lagu eedeeyay 23 bishii November ee sanadkii 1974 inuu amray dilka 61 qof oo isugu jiray wasiirada dawladdii boqor Haile Selassie, saraakiil ciidan iyo dad magac lahaa oo ka mid ahaa baadarigii madaxda ka ahaa kiniisadda Orthodoxka ee Itoobiya. inkastoo uu beeniyay mas'uuliyadda dilka inuu lahaa kelidii laakiin waxa uu ku tilmaamay go'aan wadareed. maamulkii dargiga ayaa waxa lagu eedeeyay Itoobiya inuu ku dilay 750,000 oo qof oo lagu eedeeyay mucaaradnimo isla markaasina la sheegay inay taageerayeen xisbigii EPRB oo isku dayay inqilaab fashilmay sanadkii 1976. dadkaasina waxa la laayay intii u dhaxaysay 1977 ilaa 1978 waxaana dilkaasi loo yaqaanaa argagixii casa. sanadkii 1977 Colonel Mengistu Haile Mariam waxa uu dagaal la galay Soomaaliya kadib markii ciidamada Soomaaliya ay gudaha u galeen gobolka Soomaali galbeed. markii dambena dagaalka ayaa fiday iyadoo ciidamada Soomaaliya ay hore ugu jiciirteen gudaha Itoobiya iyagoo gaadhay Sidaamo oo ah gobol aan ka fogeyn magaalada caasimadda ee Addis Ababa. laakiin Itoobiya waxay qayladhaan u diratay midowgii Sofiyeeti oo ay isku dhacsanaayeen Soomaaliya waxaana loo soo diray ciidamo ay hogaaminaysay Kuuba kuwaasoo gudaha Itoobiya ka saaray ciidamadii qabsaday waxaana ugu dambeyn dagaalkaasi lagu jabiyay Soomaaliya.
sanadii 1983 ilaa 1985 Itoobiya waxa ku absatay macaluul galaafatay nolosha in ka badan 1 milyan oo qof iyadoo sidoo kale waqtigaasi Itoobiya ay ka soconayeen dagaalkii ay wadeen jabhadii xoreynta Eritrea iyo gobolka Tigray oo isgarabsanayay kuwaas oo dagaal kula jiray dawladii Dergiga. Mengistu Haile Mariam ayaa waxa uu taageeray jabhadii dagaalka kula jiray dawladii kacaanka ahayd ee ka jirtay Soomaaliya kuwaasoo ugu dambeyn xukunka ka tuuray General Maxamed Siyaad Barre 1991. Maxamed Siyaad Barre isna dhankiisa waxa uu taageeray jabhadii dagaalka kula jiray nidaamkii Itoobiya. Mengistu ayaa isna meesha laga saaray isla sanadkii 1991 waxaana uu u baxsaday dalka Zimbabwe oo uu ku nool yahay ilaa hadda. halka ninkii Soomaaliya madaxda ka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre isna magangeliyo uu weydiistay Nigeria oo uu ku dhintay sanadkii 1995. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرة dhaqanka suuban ducooyin soo فتوى أما إسلام unadir hal shan eber